dib u noqoshadani ayaa timid kadib markii heshiis laba geesooda ay kala saxiixdeen ganacsatadii Soomaaliyeed ee dhawaan boobka loogu geystay deegaanka Istaraan iyo dadka deegaankaasi. inta badan goobihii ganacsi ee xirnaa maalmihii la soo dhaafay ayaa si nabad ah albaabada loogu ballaqay, waxaana howlahoodii shaqo dib u bilaabay ganacsatadii ganacsiga ku lahay deegaanka Istaraan ee duleedka magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. TV-ga Universal ayaa qaar ka mid ah ganacsatadii dib u howlgashay waxa uu weydiiyey sida ay u arkaan in ay mar kale ganacsigooda dib boorka uga jafaan. alxamdulillah walaa adeertaan 100% waa xaaladu macnaha xabashadii waa la xaliyay boqolkiiba wax dhib hadda jira malan dukaamanka dib loo furto waa la amray waa ka saadaba u jeeda waa shaqaysanayna anaga wax dhib oo problem ma qabno marka boqolkiiba dukaamada qaarkood dibna waa la furo qaar labiil lama furin marka qaf bay dhaanta hadda anaga dukaamanka qaarkood wax yar been baan dhaana oo waxa way yar boob weyn waan ugu dhacay dibka jira waxa way marka xib diriska aan iska wanaagsanayo diriska aan qurxinay qaarkood na caawin diriska alxamdulillah wax dhib ma arkin marka ka dambo waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan marka la dhicno waa markii ugu horeysay Istaraan waxaas oo ku dhaco dukaanka waxa waaye customka ugu tiirsan yahay ayagna waa ku tiirsanaan marka haddii dukaanka la xiro meel wax ka gataan arki maayaan marka waxa la isku yahay budo qaba iyo baada qaba la isku yahay marka alxamdulillah waa kuna wasqabnaa ayagna waa kuna wasqabaan dukaan la fursay aad ugu faraxsan yihiin waxaad inoo warantaa bal dukaamada dib loo furay iyo xaaladda hadda sida ay tahay. alxamdulillah xaaladaha hadda dukaanka waa iska degan yihiin wax daran ma jiraan dhib damana ma arkin ilaa inta sano gusma ayaa leenahay wixii khayra ana waafaji hadda marka shaqada waa kala socotaa Soomaa alxamdulillah waa kala socotaa aad iyo aad soo kala fridge-kan saliidana dhagax uga dhigay ayagan dhagaxana ida silba ayaga dhigan Soomaa ayaga soo galay meeshana rogay saliidana dhagax uga dhigay tirishda meek soo galay ayaga fridge-kan ma day alxamdulillah baa baan saaxiibkay nasiibkayga qaafay alxamdulillah marka xaba shaqada dib u bilaabato hadda ay caruurta wax ka gadayna waa jiwiga waa jiwis ka xasilan xaafadu xaafad iska degan alxamdulillah marka wax naga halaas afar aduun ma jiro waxaan iska sheegnaa wax dambe way Cabdi Cala Saguure waa gudoomiye ku-xigeenka Somali Safe oo safarka indhaynta ay ugu wehelinayay xaaladdu maanta waa mid aad u degan badanaa dukaantii dib ayaa lagu soo laabtay waa hadal dheer oo dhexmaray community-ga Soomaalida iyo community-ga South Africaanka dhibaatadu waa mid dhacday Istaraan marka waxaan dhihi karnaa waa mid ugu horeysay markii laga soo tagay waayadan dhibaatooyinka dhici jiray meelaha xasiloonida badan ay ku jirtay marka waxa xal laga gaaray in dhibaatadii dhacday la xalliyo dukaaman way jiraan wali laga qaatay fridge-mankii iyo wali gabi ahaanba burbursan laakiin waxaan dhihi karnaa boqolkiiba 80 dib ayaa loo soo laabtay shaqadu way socotaa. indhaha Soomaalida dalkani Koonfur Afrika kuma cusba goobo la boobay waxaana mar waliba ay daris leeyihiin boob ay u geystaan dadka reer Koonfur Afrikaanka ah waxaana dhacda had iyo jeer in qof maanta qani ah oo bari noqdo qof aan shaaha shuba karin. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town.